marxalad cusub dhinaca siyaasadda dalka gaar ahaan loolanka doorashooyinka maamul goboleedka iyo deegaanada caasimadan jamhuuriyadda Jabuuti. Isweydiintu waxay tahay daawadayaal, maxaad ka taqaan maamul goboleed? Daryeelka dimuqraadiyadda dalkeena si loogu dhaweeyo dadweynaha maamulka waa ilays uu ooda ka qaaday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle sanadkii 2006. maxay tahay waayaaragnimada laga dhaxlay wareegii koobaad 5 sano ee la soo dhaafay doorashooyinkii ka dhacay dalkan jamhuuriyadda Jabuuti? maxaa qabsoomay, maxaase qabyo ah? ayaa mutaystay in la doorto doorka maanta? dhammaan qodobadaas daawadayaal waa xubinteena caawa ee barnaamijka Lifaaqa Warka. dalkeenu waxa uu ku taagan yahay dariiqa dimuqraadiyadeed, bal taariikhda aan dib u raacno. sanadkii 1992 waxaa ka qabsoomay dalka jamhuuriyadda Jabuuti aftida dastuurka oo fure u noqotay dimuqraadiyad wanaagga dalkeena. waxa isla waqtigaasi kadib la abaqaaday nidaamka loo yaqaano multipartism oo isagu ah nidaamka axsaabta faraha badan oo fasaxaya furashada xisbiyo siyaasadeed dalkan jamhuuriyadda Jabuuti. intaasi kadib waxqabadka muuqda taariikhduna ay xusi doonto waxaa ka mid ah doorashooyinkan taagan doorkan ee ah doorashooyinka maamul goboleedka oo ah hindise madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ooda ka rogay 2006 uguna bishaareeyay ummadda reer Jabuuti. Chers compatriotes, l'année 2006 sera aussi l'année de la décentralisation. À ce propos, le report des élections régionales que j'ai accepté suite à la demande des partis politiques n'enlève rien à ma détermination quant à faire aboutir ce projet politique qui est désiré et attendu par le peuple djiboutien comme un grand moment de notre jeune démocratie. dadweynaha reer Jabuuti oo horay u caadaystay laba doorasho oo kali ah, ta madaxtinimada iyo ta baarlamaanka, ayaa si diiran u soo dhaweeyay baaqa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. waxaana loo hawlgalay marxaladda saddexaad ee doorashooyinka dalka oo ah maamul goboleedka. jawi degan iyo isku duubnid dal wadaagnimo ayaa nimba geestiisa ololaha loo galay. Lifaaqa Warku waxa uu daawadayaal soo gudbinaya habeenkan caawa xusuusta iyo xiisihii ololihii kal hore doorashooyinka maamul goboleedka. ودح مري واركي سدا مارتي الحب قبل نتخيل إس دربي حاجدي دربي مري دوري تمرة أو عليه تأكل تقرر درا سيدي حبر دفريتا سرودي كاست يكتناي waxaan ku kala duwanahay nimanka aan tartamayno kolka run ahaan loo eego. citoyen baan nidho, citoyen maaha magacuna guntana waa citoyen. soo dhacayood maqlaysiin photocopy baa la sheegayaa, original baa la sheegayaa, war photocopy maatiin. nanu asaku EPR disokinnuku ligdole abba halluk addereh midiri kaalluk yabcureh baadho kaalluk marxole migdale idolla gubulaalluku
أساكو إنهنا احتياتا جمعتك وذلكها سلموا إنام يلي فرمك كي يما ماريغا tobankii bishii Maars 2006 ummadda reer Jabuuti waxay u dareereen goobaha codbixinta si ay u soo doortaan wakiilada maamul goboleedka iyo maamulka deegaanada caasimadda ee dalkan Jamhuuriyadda Jabuuti xubnahaasi oo ahaa xubno loo dooranayay in ay mayalka u qabtaan maamulka iyo maareynta bulshada ay la nool yihiin doorashooyinkaasi oo ahaa kuwii ugu horreeyay ee nuucooga ee ka dhaca dalkan Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa si nabadgelyo ah uga qabsoomay guud ahaan dalka oo dhan si wanaagsan oo sharaf leh ayay uga soo baxeen dadkeenu sida ay dadku uga dhaadhicinayeen sida ay u soo dhigayeen barnaamijkooda sida ay nin waliba isku dayay inuu helo ama uu kasbo codka dadka uu wax ka dhaadhiciyay aad baan ugu mahadnaqayaa sida fiican ee nabadda ah ee arrinkaasi ku dhammaaday waxa aan hambalyo u jeedinayaa idaacadda iyo telefisyoonka oo ka hadhi waayey meel kastiba ha joogaan dadkuye meel kastiba cid walba ha ahaadaane axsaabta iyo kuwa madaxa bannaan kelidood iyaguna isa soo bandhigay mar haddii lagu guulaystay dhaqaajinta nidaamka maamul goboleedka waxaa si rasmi ah loo daahfuray taabdhaqaaqa cusub ee maamul goboleedka oo ah maamulka dowladaha hoose dowladda dhexe ama xukuumadda oo horseed uu ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Gelle waxa ay dhaqaajiyeen in loo diyaariyo loona meel dhigo agabyada iyo baahida xubnaha dowladda hoose si waajibkooga ay u gutaan haddaba daawadayaal si loo sahlo waxqabadka iyo miro dhalka maamul goboleedka dadkana loogu dhoweeyo maamulka iyo maareynta howlaha horumarka dalka waxaa gobol walba laga dhisay lagana furay xafiiska maamul goboleedka oo ah salka xubnaha la doortay ee maamul goboleedka si ay ugu kulmaan uguna diyaariyaan mashaariicda horumarka ee laga sugayo gobol walba inuu ku tallaabsado madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa si isdaba joog qodobka uga jaray xarumahaasi golaha maamul goboleedka hadday noqoto Dikhil Cali Sabiix Tajoora Ubukh iyo gobolka Carta waa tahay daawadayaal inkastii oo wali ay socdaan ololaha doorashooyinka dhici doona 20ka bishan aanu ku jirno maxay tahay way aragnimada laga dhaxlay wareegii koobaad doorashooyinkii ka dhacay dalkan Jamhuuriyadda Jabuuti
sanadkii 2006 doorashooyinka doorkan dhacaya maxay kaga duwan yihiin doorashooyinkii kal hore lifaaqa warka iyo aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle mar uu ka hadlay arintan dhowr maalmood ka hor waraysi uu siiyey Maxamed Daahir kolkii aan sameynay conseil regionalka ayaa la yidhi midna waa conseil regionalku president ka noqonaya midna fulin buu noqonayaa oo secretary executive baa yaa loo bixiyay prefegina halka buu joogaa oo dawladii dhexe ayuu matalayaa bal saddex madax bay kolkaa yeelatay meesha gobolkiiba saddex madax ayuu yeeshay moynala noqon weydii kolkaa minaan mid meesha ka saarno yaan sanadkani yaan qaraar ka qaadanay oo gudoomiyaha golaha degmada ayaa kelidii isagu yani inuu matalo dadweynaha iyo wixii la soo doortay isaga ayaa ka abaa isaga administrationadani iskuulada iyo maxayga iyo caafimaadka iyo waxaan oo dhan inay isagu yani iyo beeraha iyo biyaha iyo waxaas oo dhan isagu inuu abuuro isagu inuu xakumo isagu inuu u tuso baahida kolkuu dee golaha maamulka iyo dee prefega iyo dowladdaba u sheego in uu hogaamiyo siyaasad ahaan uu hogaamiyo dadweynihiina uu isagu codkoogii uu noqdo si kastaba ha ahaatee wixii qabsoomay iyo waxqabadka dhiban dhamistirkiisa waa mid u taalla maamulka codbixinta ka soo bixi doona iyo dadweynaha reer Jabuuti si wadajir markaas la isu kaashado dalku waa dalkeennii doorashadu waa danteenna dhambaalka lifaaqa warku waxa uu yahay doorashadu waa xaq iyo waajib muwaadin walba oo naga mida uu leeyahay balse isweydiintu waxay tahay daawadayaal ayaa mutaystay in la doorto doorka maanta waxaan ku ogaan doonaa doorashooyinka 20ka bishan aanu ku jirno daawadayaal barnaamijkii lifaaqa warkii habeenkan caawa waa naga intaas waxaan naga tegaynaa dhammaanteedaba nabadgelyo iyo ammaano Allah